Asalaamu calaykum asxaabta soo dhawaada. Waxaan kusoo laabanay campaignki. Hadda marka campaign levelkan joognaa. Haddii aan rabno marka in aan tagno adsets ama adset levelka, kadib hal adset aan noo saaran weli. Adska haddaan tagno oo meesha levelka ugu hooseeya waxaan samaysanaa laba ads. Laba xayisiin ayaan waxaan ka dhex samaysanay adset levelka. Marka maadaama laba xayisiin samaysanay, macnaha laba sawir ayaan isbarbar dhignay aan baroobeynayna midka raqiis noqon doono aan fiirinayna macnaha. Marka sawir kasta wuxuu wataa hal qoraal. Marka maadaama uu sawirka koobaad iyo qoraalka koobaad ay hal xaba yihiin, sawirka labaadna uu qoraal asi u gaar wato oo sawirka labaad iyo qoraalka labaad ay yihiin ama add copy 2 image 2 iyo add copy 1 iyo image 1. Waxaan rabaa marka add copy 2 ama sawirka koobaad iyo qoraalka labaad haddii is wataan inaan fiiriyo, iyo sawirka labaad iyo qoraalka koobaad inaan isbarbar dhigaan rabaa marka. Oo sawirkan aan siiyo qoraalka sawirkan aan siiyo qoraalka sawirkan. Ina fahamtaan jeclaa. Marka waxaan sameynaa marka duplicate aan leeyahay oo laba marab. Kadibna waxaan isbarbar dhigaa marka qoraalladaan swap ku sameynaynaa. Kadib markaas waxaan fiirinaynaa dhowti sawirkan marka qoraalka oo kan la socdo lagu qoro ma macnaha raqiis noqon doonaa mase marka kan afartaas xayisiin una dhowti mid walba macnaha result u gaar ah ka arki doonaa. Marka ayaga markaas waxay noo sheegayaan tan ugu raqiisan markaas ka fahmay. Marka haddii marka sawirka afartooda mid kamid ay raqiis noqoto oo macnaha sawirka iyo qoraalka meesha ku qoran iskeenaan, inta kale waa iska diminaya taasa marka isticmaalay. Marka insha Allah taala ina fahamtaan jeclaa. Marka hadda duplicate iska leh mid kamid ah. Haddii duplicate aan taabto ilaa laba xabaad u baahnaa markaan laba ka dhigto. Kadib duplicate dabo. Marka hadda waxaan sameynayno ina fahamtay ayaan jeclahay. Sawirkii koobaad oo qoraalka koobaad watay ayaan waxaan macnaha qoraalkiisa waxaan ku qoraynaa sawirka labaad. Sawirka labaad qoraalkiisana sawirka koobaad ku qoraynaa. Marka hadda waa ujeedaa add copy 2 image 2 iyo add copy 2 image 2 macnaha copy laba marab. So marka waxaan sameynaa marka kan waxaan ka dhigaa add copy 2 maadaama aan haysto image 1 meeshaan ka dhigaa. Marka kan hadda marka waa add copy 2 image 2. So waxaan bedelaa lebis image 2 waa haysana add copy gaasaan bedelaa bis. So marka waxaan imaanaa add copy 1 ka imaanaa. Add copy 1 marka imaado qoraalka add copy 1 ka ku aan ku qornaan qaadanaa. Because qoraalkaas bis aan u baahnaa. Image 2 waa haysanaa laakiin. So image 2 waxaan ka tirtiraa image 2 waa haysanaa laakiin image add copy 1 aan leeyahay marka. Add copy 1 wato add copy 1 iyo image 2. Marka add copy 1 oo sawirka image 2 wato waa macnaha. So hadoo kale marka waxaad dhigi kartaa publish. Haddii rabtidna kana soo sameyn kartaa kadib aad publish dhigi kartaa. Sometimes marka Facebook wuxuu sameeyaa wixii xogo bugs iyo waxba ku jiro marka mar isla ma shaqeyso. Marka hadda kana publish leeyahay kadibna u soo laabanaa kalena marka saas ku sameynaa insha Allah. So marka hadda waxaan haystaa add copy 2 oo image 2 wato. Sorry, add copy 1 oo image 2 wato. Iyo waxaan haystaa add copy 1 oo image 1 wato. Meeshaan waxaan ku haystaa add copy 2 oo image 2 wato. So marka waxaan u baahanahay add copy 1 oo image 2. Meeshaan hadda waa ku haystaa waxaan u baahanahay add copy 2 oo image 1 wato aan baahana marka. Marka waa kana add copy 2 meeshaan image 1 imagekaas bis aan bedelayna insha Allah. So marka waxaan sameynaa maadaama aan wato add copy oo meesha ugu qoran yahay image 1 aan ka dhiganaa meeshaan. Kadibna meeshaan ayaan waxaan leeyahay add copy oo u baahanahay imageka bis inaan iska socodsiiyo on iska tirtira bis aan baahanahay oo imageka kale aan ku bedelo lebis. Si hadhowta aan u ogaado midda shaqeynayso badanaa. So kan waay marka. Imagekii oo koobaad waa marka. So marka add copy 2 iyo image 1.
kadib publish dheh. Okay asxaabta marka ujeedin waa isku dhamaatay. Meeshan waxaa noo taalo 4 ads oo different creative marka afartaas ad macnaha ayagii aan isbarbar dhignay laba ad oo kala nooca waaye haddii aan soo gaabino labada kala nooca marka isku waxaan ku sameynay image-ka iyo ad copy-ga. marka waxaa laga yaabaa in waxaan test gareynaynaa waxaa waaye image-kan markii oo macnaha qoraalkiisa oo macnaha qoraalka oo haddii aad jeceshaa like saar oo wato mu macnaha raqiis noqon doonaa mase wuxuun raqiis noqon doonaa marka qoraalka kale oo wato oo ahay haddaad tagtid oo kale ad copy 1 image 1 oo kale qoraalkiisa haddaad tagtid oo kale qoraalkii aan ku qornay ma xasuusan kara hadda qeybi jaceelka marka qeybi jaceelka miyo macnaha raqiis noqon doonaa macnaha qoraalkaasa marka iyo ad copy iyo image-kii inta isbarbar dhigto waxaa arkaysaa markaas tan aad iyo aad dadka markay arkaan ay ula dhacayaan ay click saarayaan ay like saarayaan taas marka haddii kaba soo qaad marka ad copy 1 image 1 ayaa wuxuu helay likes ugu badan oo haddana ugu raqiisan markaas waxaa sameynaya kuwan kale iska diminaya dollarka dhan marka tan uu soo galaa laakiin hadda dollarka afartana loo kala qaybinaya macnaha sanas halka dollar afartana loo kala qaybinaya marka waxaan jeclahay inaad fahamtay cashirka ku xigi doono wuxuu noqon doonaa asigana sida hadda tan aan duplicate gareyna aadka ayaan waxaan duplicate garey doonaa insha Allah taala waxaan duplicate garey doonaa adsetka marka adsetka duplicate gareyno waxaan sameynaynaa markaas hal ad oo adsetkaas oo meel kale aan target gareynayno wadan kale iyo meelo kale kadibna waxaan rabnaa inaan aragno bas inaan macnaha isu barbar dhigno lacagta kooska iyo waxaas marka insha Allah taala waxaan soo arkaynaa cashirka wuxuu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.